dabaaldega 26 Juun waa astaan qaran waa maalintii ay xurriyadda qaateen gobolada waqooyi ee dalka. British Somaliland waxaa gacanta ku hayay gumeystihii Ingiriiska in ka badan 70 sano, laakiin arrintaasi waxaa la soo afjaray maanta oo kale 26 Juun 1960. ka hor xurriyaddii gobolada waqooyi ee 26 Juun 1960 waxaa jiray dhacdooyin iyo tillaabooyin ku tusinaya wadaniyad iyo isjecel dhexmaray bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waqooyi iyo koonfur. 4 Abriil 1960 golaha tashriica British Somaliland ayaa meel mariyay qarar ama go'aan ku saabsan madax bannaanida Somaliland iyo Soomaaliya. gobolada waqooyi ama Somaliland si ka duwan maanta la jooga ayay go'aanka madax bannaanida iyo midnimada ugu farxeen. maalmo kadib 22 Abriil 1960 waxaa Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir 6 maalmood u socday wafdigii ka socday waqooyi iyo koonfur. labada dhinac waxa isku afgarteen in 1 Luulyo 1960 la midoobo oo waqooyi iyo koonfur ku midoobaan Jamhuuriyadda Soomaaliya. kulankani oo ka dhacay Muqdisho waxa uu ahaa mid miro dhalay waxaana la kala tagay iyada oo labada dhinac ay ka muuqato farxad. dad badan ayaa qabay in kulankaasi uu ahaa mid caadifad iyo walaaltinimo ay hareysay, waayo lagama hadlin sida ay labada xisbi ee ah xisbiga SNL oo waqooyiga ka jiray iyo xisbiga SYL oo ka jiray koonfurta ay wax u qaybsanayaan. labadii bishii May 1960 waxaa Yurub tagay wafdi ka socda Somaliland. safarkaasi waxaa ka soo baxay in 26 Juun 1960 la gaarsiiyo British Somaliland madax bannaani. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo wafdiga horkacayay oo la hadlay ummadda Soomaaliyeed isagoo lana jooga waxa uu ku celceliyay in Somaliland ay la midoobi doonto koonfurta sidaana ay labada dhinac ay ku faraxsan yihiin. 25 iyo 26 Juun 1960 lagama seexanin goboladii waqooyi ee Soomaaliya. madaxdii Ingiriiska iyo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa ay ku mashquulsanayeen kala wareejinta maamulka iyo sagootinta gumeystaha. shacabka waxa isku diyaarinayeen in ay noqdaan dawlad. waxaa inta dheer fanaaniinta oo qoray heese iyo suugaan lagu cabirayo maalintaasi qiimaha badan. waxaan filayaa marka aad xurriyad soo xasuusato waxaa dhagihiina ku soo dhacayeen goormaan ladnaanay 60 logooyadii na deysay 26 Juun. goormaan lunanay 6 saac goormaan liibaanay 1 Luulyo laba midowday. ereyadaasi waxa ay soo koobayaan dareen jiray 26 ilaa 1 Luulyo 1960. maalmahaasi oo kale Soomaaliya hore uma soo marin. lix iyo 26 Juun 1960 waxaa xuroobay qaybta waqooyi ee dalka Soomaaliya. Soomaalida ayaa la wareegtay maamulka dhulkooda. isla maalintaasi waxaa calanka laga taagay bartamaha magaalada Hargeysa beerta xurriyadda iyada oo la qaadayo gabaygii ka nasiibka nasaar. halgamaa Soomaaliyeed ayaa gabaygaasi caanka noqday codkiisa ku qaaday. waxa uuna noqday gabay ka turjumaya rabitaanka bulshada Soomaaliyeed ee waqooyiga iyo koonfurta. waxaa jirtay heesle waa 26 ay labadii geesood midi ladnaantay lurtii gumeysiga geedheer ku laalay. waa 26 lugtii waqooyi libintii keentay cadowgii lagdeen leertii xurnimo liibaan ku gaareen. waa 26 labada geesood midi ladnaantay. waa 26 labada geesood midi ladnaate lurtii gumaysiga geedheer ku laale. lurtii gumaysiga geedheer ku laale. laydhkuno iftiime laydhkuno iftiime laydhkuno iftiime laydhkuno iftiime. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo la hadlayay shacabka kadib bixitaankii gumeysiga Ingiriiska waxa uu sheegay in dalka ay ka bixeen ajaanibtii. innaga ayaana loo kala tagay ayuu intaasi raaciyay isagoo hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in 1 Luulyo ay raacayaan walaalahooda Soomaaliya. 4 maalmood kadib 26 Juun waxaa xurriyadoodii qaatay goboladii koonfureed ee dalka Soomaaliya waxaana halkaasi ka baxay dalka Talyaaniga oo maamulayay muddo 10 sano ah.
allaha u naxariistay Maxamed Ibraahim Cigaal waxa uu soo horkacay wafdi reer Somaliland ah oo Muqdisho u yimid arrin taariikhi ah taasoo ahayd in la mideeyo labada gobol ee dalka taasoo run noqotay 1 Luulyo 1960 heestani ayaa ka mid ahayd heesihii loo qaaday xurriyadii Juun 26-keedii midnimadii labadii gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliya kadib waxaa dawladii madaxweyne Aadan Cabdulle Cismaan dhanka waqooyiga Soomaaliya wafdigii ka yimid waxaa hogaaminayay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo xilal kala duwan ka qabtay dalka wasiirka difaaca 1960 ilaa 1962 wasiirkii waxbarashada 1962 ilaa 1963 ra'iisul wasaarihii dawladii Cabdirashiid Cali Sharma Arke 1967 ilaa 1969 Aadan Cabdulle Cismaan oo ka soo jeeda gobolada koonfurta ayaa dalka madax ka noqday xurriyadii kadib waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay Cabdirashiid Sharma Arke oo isna ka soo jeeda koonfurta 11 Juulaay 1961 waxa uu Aadan Cabdi mar kale doortay Cabdirashiid Cali Sharma Arke waxaa jirta arrin xusid mudan labadii xukuumadood ee Cabdirashiid Sharma Arke uu dhisay reer waqooyiga ama British Somaliland waxaa la siiyay 4 wasiir halka koonfurta ay heleen 10 wasiir waxaa intaasi dheeraa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo dhammaan ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya ee uu maamuli jiray gumeystihii Talyaaniga taasi oo keentay in wasiiro badan is casilaan markii dambe oo ku jiro wasiirkii waxbarashada Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo Sheekh Cali Ismaaciil wasiirkii gaashaadhiga Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo xurriyadda ka hor waqooyiga dalka ka ahaa xoghayaha guud ee xisbiga SNL iyo ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Somaliland ayaa Soomaaliya ka noqday dhowr wasiir iyo ra'iisul wasaare laakiin waxaa xiray Maxamed Siyaad Barre kadib inqilaabkii Oktoobar 1969 isaga oo xisbiga ku jiray ilaa 1981 marka laga reebo hal sano oo Indiya uu safiir ka ahaa bishii May 1988 waxa ay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya dilil ka geysteen magaalada Hargeysa taasi oo keentay in dad badan ay ku dhintaan Hargeysa wixii 1981 ka dambeeyay qalbiga ayay ka goosatay Muqdisho waxa ay bilaabeen halgan ka dhan ah dawladii Soomaaliya taasoo keentay markii dambe in 18 May 1991 ay ku dhawaaqday gooni isu taag ama madax banaani Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo wareysi bixiyay 1961 kadib kana hadlay gooni isu taagii Somaliland waxa uu sheegay in midnimada labada gobol ay ku timid caadifad iyo qorshe la'aan hadda waxa socda wada hadal labada gobol ah sheekada waxa ay taagan tahay halkii 1960kii ay joogtay weli waa ay ka sii adag tahay Soomaalida beesha caalamka iyo cid walba oo daneynayso arrimaha Soomaaliya waxa ay isha ku wada hayaan waxa ka soo bixi doona wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland iyo halka ay natiijada noqon doonto ugu dambeyntii waxa xaqiiq ah in 26 Juun ay tahay maalin go'aankeeda lagu wada farxay laakiin miraheeda koox gaar ah ay guratay haddii midnimo la rabo waa in ay dhacdaa tanaasul ka yimaada dhanka koonfurta lana siiyo goboladaasi xuquuqdooda oo dhameystiran